kulan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaad ku soo dhawaataan mid kamid ah dhacdooyinkii ama sheekooyinkii aan halkan idinku soo tabi jirnay sheekadeennana waxa ay qusaysaa maanta maqaal uu qoray 10 Oktoobar sanadii 2005 Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo aan filayo inaad dhammaantiin wada taqaanaan siyaasadda Soomaaliya ee maantana kaalin weyn ku leh. Fahad waxa uu qormadan ugu magac daray 10 Oktoobar habeenkii moobilkayga laga xaday. waxa uu qoray sidaan idin sheegnay 10 Oktoobar sanadii 2005 waxa uu ka sheekeynayaa 10 Oktoobar 2004 habeenkii la dooranayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed dhacdo ku dhacday. sidan ayayna ku bilaabanaysaa qormadiisa. subaxii ay sanadkii hore ahayd 10 Oktoobar oo 2004 kaga jeeday ayaan aaday garoonka kubadda cagta ee Kasarani oo Nairobi ku yaala. dantii aan u aaday waxay ahayd inaan dhowr hay'adood oo caalami ah u soo tabiyo xogta wararka maalintaas ka dhici doona goobtaas. nasiib wanaag taleefankii uu ii shaqaynayay ilaa laga gaaro 12 fiidnimo. waxaa la iga jeebsiibay markii natiijada lagu dhawaaqay oo la soo kala dareeray goortaas oo nimaan xishoonayn anoo maahsan uu jeebkayga kala baxay. waxaanan ogaaday kolkii aan u soo dhawaaday halkii aan deganaa. 10 Oktoobar qofba wax buu ku xasuustaa. xildhibaankii ay maalintaas ugu horeysay codayn wuxuu ku xasuusan doonaa maalintii ugu horeysay ee uu codeeyo. intii tartanka madaxtinimada gashay ee misana weysayna waxay calaamad u tahay maalintii ay khasaareen. waxaase ugu xusuus fiican odayga oo maalintaas ay guushu raacday oo magacii uu muddada dheer raadinayay habeenkaas hantay. waxaa isagana garab socday intii taageerada u haysay, sidoo kale intii moodaysay inay wax isbedeli doonaan maadaama askari dalka loo dhiibay. waxa uu qaybtan kaga hadlayaa in xusuusta ugu fiican ee maalinkaas uu hantiyay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariisto oo loo doortay madaxweyne. aniguse waxaan ku xasuusan doonaa ayuu leeyahay habeenkii la iga jeebsiibay moobilkayga oo aan la kulmay khasaare badan, taas oo ay ii garab socotay anoo ku qanacsanaa in waxa dhacay caawa aysan nolosha Soomaalida isbedel siyaasadeed ku samayn doonin. weliba aan u arkayay khasaare hor leh iyo god cusub oo la qotay. maxaa keenay inaan iyadoo Soomaaliya dawlad loo dhiso misana ilaawi waayo moobilkaygii? waan kaaga jawaabi doonaa ayuu ku leeyahay Fahad Yaasiin. tuugadii xaday moobilkaygii wuxuu ahaa tuug hanyar, waayo hadafkiisu wuxuu ahaa inuu ku iibsado lacag yar maalintaas uu ku noolaado. anigase haddaan sii haysan lahaa wax badan ayuu ii tari lahaa. ugu yaraan nambaradii muhiimka ii ahaa ayaan ku intifaaci lahaa. xildhibaanadii habeenkaas codaynayay qaarkood iyo kii aniga iga jeebsiibay moobilkaygii waxay isaga ekaayeen hanyaridii oo waxay wax ku doorteen xoogaa dhaqaale ah oo maalintaas la siiyey. haddiise codkiisa uu iska haysan lahaa wax weyn ayay u tari lahayd. habeenkii subaxiisa la aadi doono doorashada waxay xildhibaanadu saf u galayeen musharaxiinta iyagoo mid walba lacag fara badan ka qaadanayay una ballan qaadayay inay codkooda siinayaan. dawladdii habeenkaas la doortay waxaa maanta 10 Oktoobar u dhammaatay 1 sano ilaa iyo haddana wax ay qabteenna oo macno leh lama hayo. waxaan la yaabay sanad baa idlaaday, intii badneed Nairobi ayaa lagu dayacay. waxaan la yaabay sanad ayaa idlaaday, intii badneed Nairobi ayaa lagu dayacay, intii kalena degmo Jowhar la yiraahdo ayaa la degay. awal qorshuhu wuxuu ahaa in Baydhabo la dego, laakiin talaxumo awgeed waxaaba wasiirnimo loo diiday mid ka mid ah qabqablayaashii Baydhabo. bal adigu shaxdaas macnee meel baan degayaa aniga ayaana colaada bilaabaya. waxaa sii kala fogaaday intii xubnaha ka ahayd golaha wasiirada. waxaa loo kala baxay kooxda Jowhar iyo kooxda Muqdisho. haddana waxay u badan yihiin in shir labaad oo dib u heshiisiin loo furo, lagana yaabee inuu 2 sano qaato. Mareykankii iyo midowga Yurubba inuu aqoonsado diyaar uma ahan. waxay ku shardiyeen inay Soomaalidu wada heshiiso. taas maxay kula tahay? carabtu waaba ismoogaysiiyeen, shilan dhaqaale ah ma aysan siin. Masar iyo Sacuudiga waxay shardi uga dhigeen Soomaali midaysan in la arko. kolkaas kadib in laga hadli karo in wax la taro. tanna bal xageen saarnaa? dawladdu lacag ma hayso, shacabkii ma wada raacsanaa. sheekhay degmo ayuu marti ku yahay, awguna NGO-yadiina ka soo tag, meel nafci leh ma imaan. golihii wasiirada kuwoodii hubka haystay sidoodii ayay yihiin. kuwoodii awalba shaqo la'aanta ahaana xaalkoodii ayay ku sugan yihiin. taas maxaa kaaga baxay? 10 Oktoobar 2004
ma aysan noqonin 22 Oktoobar 1969 waxaanse ka baqayaa in ay noqoto 31 Sebtembar 1990 maalmaha Ilaahay baa leh laakiin qaarkood horumar ayaa lagu xasuustaa qaarna dib u dhac ayaa lagu sumadaa dembigana maalinta ma lehe ee cidda falka ku kacday ayaa leh su'aashaydii moobilka aan kaaga jawaabo waxaan u xasuustay laba sababood tan koowaad haddii ay dawladdu horumar samayn lahayd oo dalku isbedeli lahaa waxaa gar ahaan lahayd inaan ilaawo wixii aniga shakhsiyan igu dhacay oo markii 10 Oktoobar la soo qaado waxaa igu soo dhacaya moobilkii leega xaday ileen waa dhibaato si shakhsi ah ii heshay laakiinse aanan arag maslaxa guud oo aan ku tirtiro tan labaad maalinkaas waxaa dhacay khasaare oo midna Soomaali ku dhacday midna aniga igu dhacday tan Soomaalida haleeshay waxay tahay inay doorteen nin aan waqtigan munaasib ahayn haddii aysan dawladdu wax horumar ah samaynin waqtiyada soo socda waxaan sheeki iiga jirin in la xasuusan doono dhibaatooyin yaryar oo dhacay maalintaas Fahad Yaasiin waxa uu ku soo gabagabaynayaa qoraalkiisa ma filayo in dawladda hadda jirta ay isbedel keenayso anigu si horaan uga digay iyadoonba aysan doorasho dhicin dadkii rajada ka qabay hoggaanka cusub maxay sanad kadib oranayaan waxaan leeyahay waa inoo sanadka dambe halkaas ayuu ku egyahay Fahad Yaasiin qormadii uu qoray 10 Oktoobar sanadii 2005 uuna ugu magac daray habeenkii moobilkayga leega xaday oo kala jeeday habeenkii la doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed hadda Fahad Yaasiin waa mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan marka la eego dawladda Soomaaliya ee xilligan jirta adiga ayaan daawada ku daynayaa inaad isqabadsiiso eedeymaha iyo dhacdooyinka 2005 iyo 2021 waad ku mahadsan tahay inaad inala